آمين آمين آمين. عليكم السلام. Sheekh Xuseen Cali Jabuuti waxa uu ka mid yahay culimmada Soomaaliyeed kuwooda loogu jecel yahay. Waa baraarujiye, waa jeediye, waana faafiye dadka ay ku tilmaamaan qiimo badana waqtigiisa ugu badan ku baxsha xagga diinta Islaamka. Sheekh Xuseen Cali Jabuuti oo maalmihii lasoo dhaafay safar ku marayay qaar ka mid ah dalalka reer Yurub ayaa arrintii cajiibka ahayd ee dad badan soo jiidatay waxay ahayd dad badan ayaa istaagay waddo uu ku socdaalayay sheekha. Waxay jeclaayeen dadkaasi aragtida sheekha, waxay ku fikirayeen mar uun inay isha saaraan una mahadceliyaan. Hooyooyin Soomaaliyeed ayay u badnaayeen dadkaasi, balse sheekha waxaa dhegihiisa ku dhibcay dhawaqa codad kala duwan, balse waxa uu markiiba yidhi assalaamu calaykum. Waxaana dadkii ay aad ugu farxeen salaanta qiimaha badan ee xagga sheekha kaga timid. Bal fiiri xishoodka iyo sidoo kale dhowrsanaanta sheekha ee hal mar xitaa indhihiisa uusan ugu weecin dhankii codadka kala duwanaa ay ka soo gaarayeen. Waxa uu diidayay in ishiisu ay qabato wax ka dhowrsan, waxaana uu fiirinaya hortiisa. Balse dadkeenna qaar maanta waxay indhahoodu jecel yihiin inay eegaan wax badan oo laga xarimay. Qaarkeen ayaa ku raadinaya araggooda wax aan loogu talagelin. Sheekh Xuseen Cali Jabuuti ayaa bixinaya tusaalaha wanaagsan ee mar waliba diinteenna ay noo jihaynayso. Dadkii ku faraxsanaa sheekha inay arkaan ayaa ugu duceynaya sheekha in Alla uu barakeeyo, taasoo ku tusinaysa sida wanaagsan ee sheekhan dadku ay u jecel yihiin. Sheekh Xuseen Cali Jabuuti ayaa ka mid ah culimmada socdaallada kala duwan ku taga daafaha dunida, halkaas uu kaga qayb galo kulamo lagu weyneynayo diinteena Islaamka. Arrinta cajiibka ee sheekhan Alla uu ku manaysta ayaa in dadku ay jecel yihiin aragtidiisa iyo sidoo kale la kulankiisa. Sababta ayayna kuugu sheegayaan dadka in sheekhu yahay mid ka tilmaaman culimmada kale ee Soomaalida marka laga hadlayo xagga dacwada iyo sidoo kale jeedinta khudbooyinka. Bal fiiri, dadkan waxay ka warheleen in sheekha uu joogo magaalada ay ku nool yihiin. Waxay soo istaageen waddadii uu mari lahaa dhinaceeda, waxaanay jeclaysteen inay u mahadceliyaan sheekha, tusiyaanna sidoo kale in dacwadihiisu ay ku tixan yihiin dad badan. Ma uusan dhihin dumar ayaa tihiin maxaad u soo baxdeen, keliya dumarka dhinaciisa ka hadlayo ma yaqaana midabkooda iyo sidoo kale dharka ay wataan, maxaa yeelay indhihiisu uma uusan soo weecin xaggooda. Waxaana uu muujiyey akhlaaqda wanaagsan ee xagga diinteenna